السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوada janaalkeena faalo. Waxaan jeclay fiidiyogan in kugu soo gudbiyo sheeko gaaban oo aad u xiiso leh. Bari baa waxaa jiray laba nin oo daris ah oo la kala oran jiray Guuleed iyo Faarax. Faarax waxa uu ahaa nin beeraley faqiir ah, halka Guuleed uu ahaa nin hantiile ah. Faarax waxa uu ahaa nin noloshiisa ku raaxaysto oo farxad ku nool. Xilligii habeenkii ah marka uu seexanayo, Guuleed waxa uu la yaabana ninkan dariskiisa ah oo iska seexanay iyadoo aysan ka muuqan wax walwal iyo murugo ah. Aad ayuuna uga soo horjeeday farxadda uu ninkan haysto. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu Guuleed u yeeray Faarax, waxa uuna siiyay qasnad ay lacag ka buuxdo. Waxa uuna ku yiri, saaxiib oo lacagtan waxa aan arkaa in aad nolol faqiirnimo ku nooshahay. Waxaan rajaynaa in lacagtan ay meel kaaga soo bixi doonto. Isla markiiba aad ayuu u farxay Faarax, sidii maalintii oo dhan lacagta u koolkoolinayay. Waxaa la gaaray habeenkii, waxa uuna aaday sariirtiisa si uu u seexdo, laakiin caawa ma seexan karo. Xitaa daaqadda iyo albaabaha si fiican ayuu u xirtay si uu lacagta uga taxadaro, laakiin weli ma seexan karo. Waxa uu kolba lacagta igaba waagii ayaa ku cadaaday, isagoo aanan gamacsin ama aanan seexan. Markii uu waagii cadaaday ayuu lacagtii isaga oo wada waxa uu u geeyay Guuleed. Saaxiibkayga qaaliga ah, waxa aan ahay faqiir, lacagtaada waxay ii diiday farxadii aan haysan jiray. Fadlan hoo lacagtaada dibna iiga qaado. Faarax ayaa sidaa ku yiri Guuleed. Xikmadda laga leeyahay sheekadan ayaa waxa ay tahay si walba oo aad lacag u haysto ama aad hantiile u haato in aad marna farxad iibsan karin.